kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa channelkeena xogaha wararka oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaal lacaynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid. Maanta waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada ka taagan gobolka Bariga Dhexe, xasuuqa Yuhuudda ay ka wadaan Gaza, iyo sidoo kale weerarada ay sameynayaan kooxaha iska caabinta Falastiiniinta ah ee Gaza markaasi ka dagaalamayo. Waxaan ku horeynayaa dagaalamayaasha Saraya al-Quds waa garabka military ee Jihadul Islam fi Falastiin oo goorsii horeysay soo bandhigay muuqaal laga arki karayo iyaga oo markaasi toogasho ku dilayo askari ka tirsan ciidamada gumeystaha Israa'iil. Weerarkan waxa uu ka dhacay sida ay sheegeen bariga xaafadda Tufaax ee caasimadda Gaza ee waqooyiga marinka Gaza ee Falastiin. Qoriga barakeysan ee Al-Quul oo ah qoriga shiishka oo ay haystaan dagaalamayaasha Falastiiniinta ee Gaza ka dagaalamayo isla markaana ay soo saareen Al-Qassam ayaa Saraya al-Quds waxa ay u adeegsadeen weerarkan isaga ah ee askarigaasi Yuhuudda lagu beegsaday isla markaana uu ku baktiyay. dhanka kale waxaa maanta la duugay ninkii shalayto dagaalamayaasha Falastiiniinta ah ee Al-Qassam ay sida rasmiga markaasi u soo bandhigeen ee kaxeenayay cagafta nooca D9-ka ee ciidamada gumeystaha Israa'iil isla markaana lagu magacaabay Avraham Azulay, kaasi oo ka badbaaday gacanta geesiyaasha Falastiiniinta ah kadib markii geesiyaashan ay u suurtageli waysay in ninkan ay ku qafaashaan weerarkii xoogganaa oo ay ku qaadeen. Ninkan ayaa sida laga arki karaya muuqaalka Al-Qassam ay shalayto markaasi soo bandhigeen waxaa dagaalamayaashan ay doonayeen in isaga oo nool ay gacanta ku dhigaan, maadaama taasi uusan waqtiga u saamixin. waxaa muuqaalkan ay Al-Qassam ku soo bandhigeen isaga oo ay dilayaan isla markaana ay ka furanayaan hubkii uu watay. maanta ayaa marka la aasay askarigan isaga ah ee Avraham Azulay, waxaana duugtiisa ka hadlay qaar badan oo ka mid ah saaxiibadiisa oo ay iskala tirsanaayeen ciidamada gumeystaha Israa'iil. mid ka mid ah hadaladii uu soo jeediyay waxaa ka mid ahaa mar waliba oo aad burbur ka geysato marinka Gaza ee Falastiin, hadaladii aadna dhihi jirtay waxaa ka mid ahaa 200 oo Carab ah kuma laaban doonaan Gaza. haddana burbur kale marka aad geysato waxaadna dhihi jirtay 500 oo Carab ah guryahooda kuma laaban doonaan. haddana burbur kale marka aad geysato waxaadna dhihi jirtay 1,000 Carab ah kuma laaban doonaan guryahooda. waxaa aad ugu faraxsanayd isla markaana aad mar waliba aad ugu faanay jirtay burburka aad ka geysanaysa marinka Gaza ee Falastiin. waxaa ahayd shakhsi rabay in macbad ay Yuhuuddu leeyihiin markaasi la dhiso. waxaad ahayd shakhsi markaasi doonayay in weeraro argudasho oo markaasi sameeyo oo shacabka Gaza uu xasuuqo. waa hadal uu soo jeediyay mid ka mid ah saaxiibadiisa oo uu ka soo jeediyay xafladii duugta ee markaasi loo sameeyay Avraham Azulay oo ku baxay gacanta geesiyaasha Falastiiniinta ah kadib weerarkii xoogganaa ee ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza ee Falastiin. tani ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli muuqaalkii Al-Qassam ay markaasi soo bandhigeen oo askarigan maanta la aasay laga arki karayo uu muujinayo in ciidamada gumeystaha Israa'iil ay markaasi ka been sheegeen qaabkii lagu ugaarsaday isla markaana lagu dilay askarigaasi. warbaahinta Israa'iil ayaa tan iyo shalayto waxa ay tabinaysay in askarigan uu markaasi baktiyay isaga oo dagaalamayo, balse muuqaalka Al-Qassam ay xalayto soo bandhigeen waxaa laga arki karayaa isaga oo markaasi dhabarka u jeediyay geesiyaasha Falastiiniinta ah ee magaalada Khan Yunis markaasi ku beegsaday kadib markii gantaalka barakeysan ay Al-Yaasiin 105 lala eegtay bulldozer-kii nooca D9-ka ee uu markaasi kaxeenayay. ninkan ayaa isaga oo cararaya dhabarka laga toogtay, waxaana meesha ka baxay wararkii warbaahinta Yuhuudda markaasi lagu tabiyay ee ahaa in uu baktiyay isaga oo dagaalamayo. waxaa sidoo kale beenoobay wararkii warbaahinta Israa'iil markaasi laga tabiyay ee ahaa in dagaalamayaasha Falastiiniinta ah ee weerarkan soo qaaday in iyagana in ay ku dhaawacmeen weerarkan. waxaana sida laga arki karaya muuqaalka Al-Qassam aanu jirin wax dhaawac ah oo markaasi soo gaaray geesiga Falastiiniga ah ee weerarkan markaasi geystay. waxaana muuqaalkan laga arki karaya in Al-Qassam
ay awood u lahaayeen in askarigan ay markaasi gacanta ku dhigaan oo ay qafaashaan, balse taasi beddelkeeda waxa ay go'aansadeen in ay ka takhalusaan gebi ahaantiisba kadibna ay la baxsadaan oo ay la carareen hubkii uu markaasi watay. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa goor sii horeysay waxa uu soo gabagabeeyey booqashadii uu ku tegey islamarkaana uu ku joogay caasimadda Washington DC ee dalkaasi Mareykanka. Netanyahu ayaa halkaasi waxa uu ka soo jeediyey hadal ahaa in maalmaha nagu soo aadan heshiis rasmi ah oo xabajoojin ah iyo mid maxaabiis bedelasho ah in ay gaari doonaan Israel iyo Xamaas. waa sida uu hadalka u dhigay. dowladda gumaystaha Israel ee uu hogaaminaya ninkan ayuu sheegay in rajo weyn ay markaasi ka qabto in lagu soo wareejin doono kalabar Israa'iiliinta nool ee lagu hayay marinka Gaza ee Falastiin iyo kalabar baktiga Israa'iiliinta ku nafwaayay duqeymaha iyo burburka gumaystaha Yuhuudda ay ka geysteen marinka Gaza ee Falastiin. heshiiskan waa sida Netanyahu uu ka soo jeeday Washington DC oo ay gaari doonaan Israel iyo Xamaas. waxa uu dhaqangeli doonaa ilaa 60 maalmood, balse gumaystaha Yuhuudda ayaa noqon doonaa sida caadadoodu ay tahay in heshiiskan ay markaasi ku xadgudbaan. hadalka Netanyahu uu ka soo jeediyey Washington ayaa ku soo aadaya ilaa xilligan aanu jirin wax guula ah oo markaasi laga gaaray wadahadallada iyo wada xaajoodida dhinacyadan u dhaxeeyo. dhanka kale, kooxda Ansarullah ee dalkaasi Yemen ayaa goor sii horeysay waxaa digniin adag ay markaasi siiyeen shirkadaha caalamiga ah ee maraakiibta in ay ka fogaadaan dekedaha dhulka la haysta ee Falastiin. markab kasta oo markaasi isku dayo in uu gaaro dekedaha la haysta ee Falastiin ayaa Xuutiyiinta waxa ay ku hanjabeen in ay ku quusin doonaan badda cas iyo guud ahaan badda Carbeed. dhammaan maraakiibta markaasi doonaya inay gaaraan dekedaha Israel ee dhulka la haysta ee Falastiin ayaa Maxamed al-Bukhayti oo ah hoggaanka sare ee Xuutiyiinta uu markaasi sheegay in bartilmaameed ay u noqon doonaan geesiyaashan iyagana ka dagaalamaya dalkaasi Yemen, iyo weliba in go'doonkan dhanka badda oo ay ku hayaan gumaystaha Israel ay sii xoojin doonaan ilaa inta gumaystaha Yuhuudda ay ka joojinayaan duqeymaha, burburka, dilalka iyo dambiyada dagaal, iyo sidoo kale gaajaysiinta oo ay ku hayaan shacabka Falastiiniinta ah ee Gaza markaasi lagu gumaadayo. weerarada caynkan ayuu al-Bukhayti markaasi sheegay in ay yihiin kuwo ay ku taageerayaan shacabka Falastiiniinta ah ee Gaza markaasi lagu gumaadayo. ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli Israel ay ka dalbatay Mareykanka in ay dib u bilaabaan duqeymihii iyo weeraradii ay ka geysanayeen mise ay ku hayeen Xuutiyiinta waddankaasi Yemen, maadaama xilligan kooxda Ansarullah ay sii kordhiyeen gantaalada iyo diyaaradaha droneska ah oo ay la beegsanayaan Israel iyo weerarada ay ka geysanayaan badda cas. warbaahinta Israel ayaa maanta waxa ay markaasi tabisay in Donald Trump hayeshe uu ku gacan saaray codsigan loo soo jeediyey, inkastoo Netanyahu uu markaasi ku cadaadinayay Donald Trump in codsigan uu markaasi u tixgeliyo. tani ayaa ku soo aadaysa xilli Xuutiyiinta ay markaasi ku hanjabeen in aysan joojin doonin gantaalada ay la beegsanayaan dhulka la haysta ee Falastiin iyo weerarada ay ku hayaan maraakiibta xiriirka la leh Israel ee doonaya inay ka gudbaan badda cas ilaa inta gumaystaha Yuhuudda ay markaasi ka joojinayaan duqeymaha, weerarada, xasuuqa, dambiyada dagaal, dambiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha iyo gaajaysiinta ay ka wadaan marinka Gaza ee Falastiin.